xaflad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay loona qabtay dufcadii ugu horeysay ee dhakhaatiira ee ka qalin jabisa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Burco ayaa ka dhacday hotel Nasteex ee magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka ururka dhakhaatiirta Somaliland maamulka gobolka Togdheer inta badan dhakhaatiirta ka hawlgasha gobolka Togdheer maamulka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Burco waalidiinta ardayda qalin jabisay madaxda ugu sareysa jaamacadda Burco iyo marti sharaf kale waxaana ka hadlay madasha xubnaha ay kamid ahaayeen gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleebaan Dirir Cabdi gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco Geeljire isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cali Saleebaan Ramaax iyo xubin ku hadlaysay afka guddiga dhidibada u taagay jaamacadda Burco guud ahaan xubnahaasi ayaa bogaadiyay dadaalka iyo waqtiga dheer ee ay u horeen ardaydaasi barashada culuumta caafimaadka sidoo kale Axmed Cabdi Xirsi oo ku hadlayay afka ardayda qalin jabisay ayaa u mahad celiyay maamulka jaamacadda Burco dadaaran ku saabsan imtixaankii badidiisa way ka soo baxeen laakiin intii weynad baa dhacday wali formality baa harsan ardayda iyo waalidiintoodu waxay ahaayeen dad aad iyo aad niyad ugu haya dad aan ka daarayn dad dhammaystiraya shaqadoodii maamulka iyo macallimiinta kulliyadda iyana commitmentkaas uu runtii jiray waa guddida boardka jaamacadda iyo maamulka jaamacadda yacni intaas oo iskaashaday oo wada shaqaynaya ayaa horta suurageliyay munaasabadda aabbihii tacliinta محمود أحمد علي وتعليمته كلامه أولي إنه صعدته تضرب سنة أنت سيد سؤال جديد ينو طبعا أنت سوى مالين تلا بعد حصوص تجارك أيوه ربته وحي مالين تدويني أرديدو ديري امتحان كهرجيسة هكو سوق عليه وهو يقول بينه قال لكن ده وش وبينه هي دمانتين أرديدا قلنت مسي ودم تضرب أردي يعاون له حفلة فاكلتكي ميديسنka ee dhakhaatiirta oo ay ku soo tabceen Soomaali badan oo halka fadhido dhakhaatiira waan leeyahay hambaliyo lixdan baan ku bilownay saayid imikana todobadaas aan ku joognaa mahad celinaya jaamacadda Burco oo ugu horeeyay madaxweynaha jaamacaddu iyo sidoo kale maamulka kulliyadda waxaan sidoo kale mahad celinaya dhakhaatiirta gobolka Togdheer waxaan idin leeyahay wad mahadsantihiin jidku waa dheer yahay sida la sheegay waana hawl badan yahay waana adag yahay qof adag rag iyo dumar in baa ka soo bixi kara taamiinaya oo habeynaya todobada arday ee qalin jabiyay dowladda hoose ee Burco waxay ku ahayd door weyn ardayda inay qalin jabiso waqtiga iyagu ay bilaabeen ilaa hadda waxaanu bixinaa 5% baanu siinaa dhaqaale in jaamacad Burco laga sameyn karo oo gaar ahaan dad isu tegtegay iyo nin qurba joog oo aan markaa la garanayn Basacad Ali Shire ku dhawaaqaan jaamacad in Burco laga aasaas reer Burco riyay laahay laakiin annaga ahaan lahayn dhakhtarka wanaagsan waxa weeye ka aan ahmiyadiisa ugu horeysa aan ahayn inuu lacag raadsado marka ninka niyadiisa ku jirto maanta inuu lacag ka sameeyo professionkan waqtiga ayaanu iska lumin jaamacadaha qaarkood baa waxay noqdeen meel dakhli laga doono meel dadka wax lagu baro ma laakiin way ka duwantay jaamacadda Burco waa markii ugu horeysay dhakhaatiir ay ka soo baxdo jaamacadda Burco Ali Daar Maxamed Boos TV Universal Burco